سلام كبعدي حفلة يرتاح كوبان مرة معها مركي وجوه رئيسي مركي قدام بيصير إن شاء الله من نقدونته حفلة بدل ما قوانينا وحيروا نوحري أنا قعدت وجوبه ما حفلة ميران إنا سمعي دور كي بلاد سيبال إنا نول حيلو وشيدو marka hore xafladda waxa ku saabsan tahay sidii la sheegayba arinta doorashooyinka oo sanatarada iyo kuwa hoose iyo galmudug kaliya mar raba inaan ka hadle caam ahaan waxaan jeclaan lahaa inaan si Soomaalinimo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku habboon in doorashada loo qabto marka hore waxaan aad ugu hambalyeynaya Somaliland wixii ka dhacay oo kale Somaliland waxa ka dhacay waa arrin mucjiso ah cid rajaynaysa aysan jirin waxaan aad uga helay saakaba hadda la itusaayay ninkii ugu codka badnaa golaha deegaanka ayaa waxa laga dhigay mayorkii magaalada Hargeysa yaani qofka iyo dadka hadii la tuso qof walba mudnaantu leeyahay dadku waa shaqeynayaan awood bay keenayaan way isku daba dhacayaan marka dambe laakiin hadii markii wax la soo dooranayana mid aan dadku rabin la keeno kuwii dadka u sarreeyay markii la keeno oo ayagoo badan isku yimaadaan mid aan dadku rabin bay doortaan madaxweyne hadhowtada waxa ka dambeeya waa wax dubood baab oo dhamaada ayaa ka soo baxa waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajaynayaa in Ilaahay tawfiiqda waafajiyo inaysan noqonin dadka la necab yahay ama aysan dadku rabin inta la soo select gareeyo inaan la keenin memberka baarlamaanka ayaguna dhanbay qabaano ergooyinka laftooda ninba waxa la yiri ii sheegay daraadi maaqal ii sheegay arrin yar oo dhacday waa laba nin ma waagi qabto dhacday ayaa jiingadaha gadan jireen la soo fiiqo marka meel bay ku gadan jireen laba nin bay ahaayeen maalintii dambe wuxuu wariyo oo isku badanay ma nin tuubooyinka doono tuubooyinka aad loo rabaa way heshiiyeen tuubooyinkii uu dooray habeenkii uu tagayo 9 saac inta ka cayb tuubooyinka carrada joogo soo aas meeshii uu geeso lacag wanaagsan buu siistay galabtii markuu guriga ku laabtay soo lacagtiisa gabar yar oo dhalay wuxuu yiri maanay biyaan ku qubaysay keen waxay biyo xal 9 saac ay gooyeen waa markuu tuubooyinka la baxay macnaheedu waxa weeye war haddii hadda qofka la dooranayo ergadu tiraado qofkiiba haysiyo waa inuu dhowr kun bixiyaa oo qof marraba dhowr kun oo uusan hayn baarlamaanka waxa weeye xildhibaanka sanadkoo dhan 4 sano mushaarkiisu wuxuu gaaraa 140-150 mushaarka uu qaato macad gunadiisa wasiir ku-xigeenka markuu yaar 180 wasiirka markuu yaar 260 way bal adigu 100 qof min 3 kursi waa 300 min 2 kursi waa 200 hadda wax geeyo ka keenaya wax noo qabana waa la leeyahay oo dalkii wuxuu qabaa annagana wax noo qabo asagina markii hore la murxiyay oo waxa ma deyntii iska bixinay marka deyntii u dagaal tagayay u dagaal tagi maayo inuu dadka wax taro marka waxaan leeyahay ergooyinka iyo dadka wax dooranayo Soomaaliyeedo yeelayaan caloosha laga rabin yaan waxa la badinin yaan dadka musharaxiinta qofkii fiican oo wanaagsan hal doortee yaan la dooran mid aan la rabin hay yay select gareyn oo keenin nimanka madaxda oo maamulada madaxda ka ah waa in 101 qof cidii ay doorato oo noqda xildhibaan ayaguna waa inaysan lacag ku cadaadin qofkii fiican doortaan aniga saasa ila quman mideena anu hadda u malayn maayo qorqorin leeyahay Axmed Taala kama qayb gali karo doorashada rumor baa iska jira cid waa la jecel yahay waa jirtaa laakiin u malayn maayo inuu hadda oranayo
lagama qaybgeli karo ama Axmed Cali kama qaybgeli karo gaar ahaan ma filayo hadduu yeelana waa mid wax kala wuxuu hore u sameeyeen waa ogyahay aniga igu sameeyey aniga waxaan u sameeyey asaga weligii ma samayn karo sababta waxa weeye waa ninkii 3 sanadood aan meesha joogay dubihii la adeegsaday waxa qorbo ulayla dhaxay asaga iyo ragga uu wataba cadaada ninkii 2 sano aan dul marayay waa staafkayga kuwii laayay ahayn ciyaalkiisu maalintii baarlamaanka keen cadaado Saleebaan ma oran in gobosheedana awal waa ka aamusaynay laakiin hadda waa dhiganaynaa 2 sanado inaan kormaro aan diyaarad ku kormari jiray qoorqoorna maalintii ugu horreysay uu tagay ilaa haddana la qaabilahay Saleebaan jawaabteeda waa laga rabaa Cabdalle iyo Sacadna waa inay arrinta u istaagaan haddii kale waxay noqonaysaa wax kastoo xun inta la sameeyo inaan la isaga daba tegin arrintaas wax ka xun oo la soo mari lahaa ma jirto aniga waa igu dawgalay waa iriday kursigiina wuu fariistay ama algu tiro badana kama rabee cadaaladda kaliya aan ka helo yaa weliba waan la shaqeeyey waad ogtihiin markii gaalkacyo asaga la doortay anoo gaalkacyo jooga adinku waa taadii timaadeen rag badan oo ergaa waxaan go'aansanay in gacan la siiyo oo loo tago oo aanan shuruud xataa ku xirin raggii ila socday maalintaas qaar badan baa fadhiya inaan inta u tagay cidna u mari maayo ma xujaynahay waa u tagay waan ku wareejiyey inuu shaki igeliyo maantana ka rajayn maayo wax waa iska rabaa hadda laakiin u malaynayo inuu kusii dheeraanayo sida loo waaniyey oo ah war cadaalad eeg war cadaaladda qofka aan cadaalad samayn aakhiriya adduunyada waa lumahaya anaa og 2016 wixii ka dhacay cadaado hadday soo laabtaan yowm alqiyaama dhacaya Soomaaliya weligay isma oran waagaas wax noocaas ka dhici kara Soomaaliya ragga baasha matirahayaana waa raggii liftiisii qaar badan oo kamid ah jooga waryaan sidii cadaadooda lagu celin arrinta laga dadaaran ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo qoorqoor iyo kulligood iyo maamul goboleedyadana qofkii falaa adduunkana waa ku halaagaya aakhirana waa ku naartagaya haddii la rabo ummadda Soomaaliya inay toosto cadaalad loo sameeyo wax dadka cadaalad baa deeqa wax kaloo deeqa ma jiraan anuu odaynimadeydii iyo taladaydii intaasaan kusoo jeedinayaa waxaan ku rajo weynahay ninka la yiraahdo Roble ra'iisul wasaaraha waa cusub yahay siyaasadana waa ku cusub yahay gacan la siiyo laguna maaragtay taakuleeyo hawsha uu hayo asagana uu noqdo imtixaan buu ku jiraa si uu guuleysan lahaa oo imtixaanka uu guuleysan lahaa ayuu u fadhiyaa waa in laga helaa inuu guuleysto insha Allah taala si uu u noqdo siyaasi weyn oo mustaqbalka soo baxa